waxaana wanaagsan dhammaan akhyaartana daawanaysa imayl kastood joogtaanba ku soo dhowaada mar kale iyo barnaamijkeennii falaqaynta qodobadan ku soo qaadanayno waxaa ka mid ah ciidanka qaranka somalilan oo tijaabiyey hubka casriga ah qayb ka mid ah gaar ahaan diyaaradaha droniska oo markaasi markii ugu horreysay hadda lagu tijaabiyey habka ay u shaqaynayaan iyo markaa sistamka ay markaa uga qayb galayaan howlgallada taasi oo durtaba argagax ku riday huwanta iyo argagaxiisada oo markaasi hadda wadnaha farta ku haya howlgalka ballaadhan ee ay sheegeen markaa in lagu soo qaadayo oo ay durtaba sii asqoobeen. waxaa kaloo ku soo qaadanaynaa barnaamijka xuska 18 May oo berritoola si ballaadhan oo abid xuskii ugu weynaa lagu qaban doono magaalo madaxda Itoobiya Addis Ababa halkaasi oo markaasi lagu soo bandhigi doono xuskii 18 May oo 28 dib ugu dhacay iyadoo diyaargalow ballaadhan markaasi ay sameynayeen shacabka reer Somaliland. iyo dhinaca kale waxaa kaloo ku soo qaadanaynaa barnaamijka dadweynaha reer Sheekh ee waxgaradkooga aqoon-yahankooga cuqaashooda salaadiintooda oo kulli isku soo baxay oo markaasi coddheer ku sheegay inay taageersan yihiin xisbiga kulmiye oo ay weligoodna ahaayeen abidna ay ahaan doonaan waxaana waxba kama jiraan ay ka dhigeen wararka ay markaa huwanta iyo kalkaalku faafinayaan ee ah in ay reer Sheekh ka yaaceen kulmiye oo xisbiga buurofuulka ee wadani markaasi u yaaceen taasi oo markaa ah dacaayad iyo brobaganda uu xamarshi samaystay baa layidhi. waxaa kaloo ku soo qaadanaynaa barnaamijka shaqaaqadii ka dhacday magaalada Ceerigaabo ee ay huwantu doonaysay in ay huuhaa iyo markaa mudaharaadyo iyo qas iyo qalalaase ay kaga abuuraan sidii ay laascaanood sameeyeen oo kale oo laakiinse gacan bira ay ku qabteen ciidamada ammaanka iyo maamulka Ceerigaabo iyo gobolka Sanaag oo ka hadlay arrintaasi sheegayna inay hadda 50 markaa rabshad wadayaala ay xabsiyada ku gureen sida oo kalena digniino horleh ay soo jeediyeen kuwa rabshadaha wada ee huwanta ah ee doonaya in Ceerigaabo khalkhal geliyaan. qodobada iyo qodobo kale ayaan ku soo qaadanaynaa barnaamijka ku soo dhowaada. waa hagaagan ku bilowna barnaamijkee waxaynu arkaynay dhowrkii toddobaad ee ugu dambeysay iyadoo huwanta iyo markaa kooxaha argagixisada ee laascaanood iyo gobolka Sool ku habsaday ay wadnaha farta ku hayeen iyaga oo sheegay in ay ciidamada qaranka Somaliland weerar ku soo qaadayaan ilaa garaadadii ayaan arkaynay oo markaasi warbaahinta la hadlayay garaadgala dagaalkii oo markaa leh waana la soo weeraraya iyo marka maalin walba midba soo fadhiista saxaafadda iyagoo cabsi weyn ka muujinaya markaa in ay ciidanka qaranka Somaliland soo weerari doonaan. waxaana uga sii dartayba markii 18 May hub cusub oo qashtiya oo bacda laga jaray la soo mariyey iyaga oo hubkii hore yaqaaneenna la sheegay inay furimaha markaasi heegan ku jiraan taasi oo markaa chief iyo joogba u diiday. waxaana hadda la sheegayaa markaasi huwantu in ay sheegeen in Somaliland hub casriya oo ay qarinaysa ay jiraan. qayb ka mid ah ayaa haddaba maanta tijaabo iyadoo lagu samaynayo mar keliya lagu arkay baraha bulshada waxaana ay noqdeen diyaaradaha aan duuliyaha lahayn ee dagaalada ama diyaaradaha droniska. in badan oo markaasi ayaa Somaliland la sheegay in diyaarado dronis haysato laakiinse huwanta iyo huwan kalkaalka ayaa warbaahintooda waxay sheegayeen inay ahayd diyaarad caaga bay yidhaahdeen 18 May hore diyaarad marka gaadhisaanada la soo mariyey. haddaba tii dhabta ahayd baa iyadoo maanta la tijaabinayo lasoo bandhigay sawiraan laga soo qaaday iyadoo markaa la sheegay goob ka mid ah goobaha fadhiisinka waa ciidamada qaranka oo aanan tilmaamayn halkay tahay iyada lagu arkay diyaaradaasi oo lagu tijaabinayo iyadoo la kicinayo iyada markaa howlgal samaynaysa tijaaba. waxaanay tani markaasi anfariir iyo argagax haddaba durtaba kusii riday huwantii oo markii hore iskugu sheekeynaysa oo lahayd diyaarad aan dhacayn bay ahayd iyo caag iyo qori bay ahayd waxyaaba noocaasay iskugu maaweelin jireen laakiin tii runtayda dhacaysay ayaa imika lasoo bandhigay. haddaba kooxaha shabaabkii argagixisada ee laascaanood gaboodka ka dhiganaya iyo kuwa dee taageera ee markaa taageerayaasha ku leeyihiin dee gudaha gobolada kale Somaliland ayaa hadda waxa ay markaasi isla dhex marayaan ay leeyihiin ma beriba ama saadamba goorta weerarka la qaadayo ma imika yacni waxay noqotay arrin ay hadda ka seexan laayihiin oo chief iyo joog buu diiday. waa hagaag dhinaca kale
waxaa jirtaba la moodaa in markaasi xisbiga wadani uu ololihiis ka sii bilowday iyadoon waqtigii markaasi komishanka uba cayiminba oo buuq badan iska sii samaystay guruubyo isaga ka tirsanaa hore ugu jiray ayuu dhahdaa waa beela igu soo biiray dhowr qof oo shakhsiyaad u yimid buu dhaha reer hebel baa ii yimid marka Ramaax oo markaa ku biiray ayuu ka dhigeen beesha Ciise Muuse oo dhan inay markaasi ku soo biirtay dhinaca iyo markaa dee xisbiga buurafuulka ee wadani buuqaasay samaysanayeen iyo huuhaadaasi waxaana jirtay dee Ramaax oo huuhaada isna ku shaqaystaa inuu yidhi reer Sheekh iyo reer Burco dadkayga oo dhami aniga ay raacsan yihiin oo Ciise Muuse dhaba markaa aan wadaa buu yidhi oo xisbiga huwantii buurafuulka ee wadani ku soo daray huuhaadaasuu markaasi isaga laftarkiisa meesha ku joogaa haddaba waxaa hadlay oo markaasi jaraa'id qabtay jilba culus yacni raggii laga dambeynayay talada gobolka markaasi ama magaalada Sheekh iyo markaasi deegaankaasi beesha sharafta leh Ciise Muuse badi waxgaradkoodii oday dhaqameedkoodii cuqaashoodii salaadiintoodii dhammaantood waxay iskugu yimaadeen markaasi shir jaraa'id oo ay u dhammaystiran yihiin oo ay ku qabteen magaalada Sheekh waxaana ay sheegeen oo cod dheer ay ku sheegeen in ay yihiin markaa oo ay taageersan yihiin weligoodna ay taageersanaayeen weligoodna ay sii taageerayaan wax iska bedelayna aanay jirin mowqifkooga ah taageerada weyn ay u hayaan xisbiga kulmiye waxay yidhahdeen ka kulmiyaan ahayn kulmiyaan ahaan doonaa shakhsi meelaha ka cararayo shaah doontay oo markaasi huuhaa iyo maalin qabaxa raadinaya annaga nama afduubi kare bay yidhahdeen maadaama naayda jilba culusti raggii u talinayay beesha sharafta leh Sheekh iyo markaasi qayb ka mid ah Burco ilaa iyo gobolka saaxil oo dhan degta waxa ay sheegeen markaasi in ay ka go'an tahay oo ay waajibba ku tahay in ay hiil iyo hooba la garab taagnaadaan xisbiga kulmiye oo haddana markaasi aqoonsigii Somaliland raadinaya oo aynu ognahay in xisbiga kalena uu huwan yahay oo markaa had iyo jeer huwanta u adeegayay aynu ognahay dibindaabyadu qaranka u geystay ciidamadii qaranku dhabarka ka jabiyey ciidamadii kale uu buurta gacaliwax saaray jabkii iyo balanbalkii ay ka shaqaynayeen wadani inay qaranka markaasi dibindaabyo u geystaan marka qarannimada Somaliland difaaceeda ayaan ku suntannahay bay yidhahdeen madax dhaqameedkaasi waxaan yidhahdeen waxa hadda astaan u ah difaacidda qarannimada Somaliland iyo aqoonsiga Somalilandba in markaasi ka midho dhaliyana doonaya xisbiga kulmiye weligeena kulmiye ayaanu ahaanayna bay yidhahdeen waxba yaan huuhaa la iskugu sheekaynoo shakhsi markaasi dee meelaha shaah u doontay aan la odhanin reerkii dhammaa markaasi gobolka ama deegaanka ama magaalada Sheekh baa raacay waxaas wax dhici kara maaha bay yidhahdeen markaasi xaqiiqda hala wajaho dhinaca kale waxaynu ognahay magaalada Ceergaabo in shaqaaqa ka dhacday habeen hore waa hagaag dhinaca kale sidaan ognahay huwantii waxa ay qas iyo qalalaase ay ka abuureen iyo xiisad markaasi magaalada Ceergaabo iyagoo calamo la soo baxay ay ku sheegeen maakhir laakiin huwanta ayaa dabada ka riixaysay oo markaa waxay doonayeen halkaasi in xabad iyo dagaal ka dhaco sidii laasaxaanoo deetana halkaasi ciidamada ammaanka iyo shacabku markaas ku dhacaan shacab dad baa la laayay wax la yidhaahdo deedna halkaa dagaal ka abuuraan qorshihii iyo mu'aamaradii ay soo dejiyeen ayaa waxa uu noqday gabi ahaanba markaasi mid fashilmay kaasi oo markaa hadda markaa ciidamada ammaanka jamhuuriyadda Somaliland ay gacan bira ay ku qabteen waxaana arrintaasi ka howlgalay oo markaasi sheegay howlgalkaasi dhaqdhaqaaqa ay la socdeen maamulka gobolka Sanaag magaalada Ceergaabo iyo markaasi taliska ciidamada kala duwan ee jamhuuriyadda Somaliland waxaana iyagoo warbaahinta si wadajir uga hadlay ay digniin culus u jeediyeen kooxaha huwantii argagixisada ee qasriga qalalaasaha doonayna ka abuuraan magaalada Ceergaabo waxaana ay sidoo kale sheegeen howlgalkaasi ay fuliyeen ciidamada ammaanku in ay ku qabteen ilaa dhowr iyo 50 qaswadayaal ah waxaana sheegeen in xukun adag markaasi la marsiin doono oo cid dambe xitaa lagu qabto hawsha iyagoo wadana talaabo adag laga qaadi doono